بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى ومهله waxaynu dhexda kaga jirnaa duruusteennii silsilada ahayd ee aynu isugu tilmaamaynay dardaaranadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan markaa xanuunada aafooyinka iyo imtixaanaadku ay jiraan. nabigeenu wuxuu ina faray calayhi salaatu wasalaam xalqadan ciwaankeeduna uu noqonayaa haddii meel xanuun ka dhaco oo koronaba ka dilaaca calaa sabiili almithaal. hadda koronaha jira uu degmo ka dhaco oo magaalo ka dhaco oo guri lagu sheego oo qof lagu sheego, inaan loo tegin qofka, oo aan magaalada lagu sheegay la tegin, oo meesha kale ee lagu sheegay iyo degmada lagu sheegay aan la gelin. nabigeena ayna faray calayhi salaatu wasalaam haddii dowladda iyo cidda maanta jirta ay ku yidhaahdaan war halkaa ha tegin, ha is adkaynin, nebigaa ugu horreeyay calayhi salaatu wasalaam. maha waxay iyagu imika ikhtiraaceenoo ay ogaadeen ma aha, waxay imika iyagu ay keensan karaan maaha, waa tajriba rabbaaniya oo sharci nebigu inoo sharciyey calayhi salaatu wasalaam, cid kalena iskama laha. waxaana sugan in xilligii cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu ayaa wuxuu aaday cumar meesha la yidhaahdo gobolkii la odhan jiray shaam. dabeedna markuu dhexda maraya isagoo madiine kasoo kicitimay meel u dhexaysa shaam iyo madiina ayaa loo sheegay oo loo waramay in meeshii shaam la odhan jiray uu daacuun ku dhacay. daacuunkaasi waa daacuun runtii saxaabo fara badan iyo ummad fara badan sababtiisa ay u dhinteen. madiine iyo halkuu cumar ka yimidna kama jiro xanuunkaasi. markii arrintaa loo sheegay cumar radia allahu canhu ayaa cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama oo leh haddii aada maqashaan meel heblaayo xanuun baa ka dilaacay, daacuun baa ka dilaacay, koronaa ka dilaacay, dhibaato kalea ka jirta, haddaad maqashaan dhulkaa ha gelina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. meeshaa iyadaa ha gelina. haddii qof lagu sheegana min baabi awlaa haw tegin dee, hadduu qaraabo yahay xataa dee telefoonka ka salaan. wahaakada kamana hor imanayso tawakulkii iyo aaminaadii ilaahay aada aaminsanayd subxaanahu wa tacaala, waxna caqiidadaada u dhimi mayso. waxaa kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii uu ku dhaco xanuunku ama ka dilaaco meelaad adiguba ku nooshahay oo dadka deegaanka aad ka mid tahay, hadduu ku dhacana ha ka bixina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. sababta aad uga baxdayna hadaad sifo kale iyo daruuro kale uga baxdo waa caadi, laakiin maxaa la diidayaa baxsad iyo fakadaad ka fakanaysa xanuunka dartii haddaad meeshaa uga baxdo iyadana waa khatar iyo dembi weeyaane, lama ogola. meel hadduu ka dhaco aadan joogin markuu waxani ku dhacay ha soo gelin. meel uu ku dhacay adigoo joogana ha ka bixin oo ha ka tegin. baqdin iyo cabsi iyo carar aada xanuunka ka cararaysa darteedna ha uga bixin buu nabigeenu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. yaa inooga baahi badan inaynu dardaaranada nebiga qaadano calayhi salaatu wasalaam. mar haddii ha gelin lagu leeyahay, wax walba oo wiqaayo laga dhigan karo, wax walba oo layskaga ilaalin karo, ama ilaahay baa ilaaliya ee sabab u noqon kara inuu wax ku soo gaari lahaa kaa difaaco, ilaahay idamkiisa inaad isticmaashaana iyadana waa min baabi awlaa. haddii afka xidho lagu yidhaahdo xidho, haddii faraha dhaqo lagu yidhaahdo dhaqo, haddii lagu yidhaahdo amaamir kale lagu siiyo oo caafimaad iyadana qaado. ilain haddii uu xanuunku kugu dhaco ood oxygen u baahato dhakhtarka markaad tagto waata lagugu xidho oxygen, miyaad odhan kartaa anigu iimaan baan leeyahay oxygen yaan laygu xidhin? maya, waa asbaab weya waxaan oo dhami. marka asbaabtii inaad qaarna qaadato ood qaarna samayso qaarna aad diido, iyadana wax meesha ku jira maahee, iyadana waxaa laynooga baahan yahay walaalayaal inaynu ilaahay baa wax ilaaliye, allahayna ilaaliye, inaynu dadaalno
وتروين كقادنا وإنان إسرائيل سنين وإنان إسليغنين إلى هنا ينبرينو هذه أدبان مهسنتين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد